It is time to recognize. For too long, baarlamaanka dalka Ingiriiska ayaa maanta ka dooday qadiyadda ictiraaf raadinta ee Somaliland iyadoo mudanaha sida dhow saaxiibka u lahaa Somaliland ee Gavin Williamson uu golahaasi ka jeediyay dood ku saabsan sidii dawladda Ingiriisku ay u aqoonsan lahayd Somaliland. Now need to step up as a nation. We now need to do something more than actually just being there. It is time to recognize. For too long, Gavin Williamson ayaa sheegay in dawladda Ingiriisku ay u baahan tahay inay haatan wax badan qabato isla markaana nolosha malaayiin qof oo reer Somaliland ay ku xiran tahay ictiraaf ay siiso dawladda Ingiriisku. Wuxuu sheegay inay haatan tahay waqtigii ay dawladda Ingiriisku aqoonsan lahayd Somaliland oo xilligeedii la joogo. mudanahani ayaa sheegay in shacabka Somaliland ay la yimaadeen dadaal badan isla markaana ay halkaasi ku soo gaadheen wax wada qabsi iyo wada jir isla markaana dawladda Ingiriisku ay ahayd sidii ay doonaysay isagoo ka codsaday in haatan lagu abaalmariyo sidii ictiraaf loo siin lahaa malaayiinta qof reer Somaliland waxaana uu ka codsaday in golahoodu uu qaato doorka ugu horeeya ee ictiraafka Somaliland. Gavin Williamson sidoo kale waxa uu xusay in Somaliland ay tahay dal koraya isla markaana heshay maalgashiyo isagoo xusay maalgashiga dekada Berbera oyna tahay in rajo loo abuuro 5.7 milyan oo reer Somaliland kuwaasoo noqon kara kuwa waxtar leh isla markaana xulafo wanaagsan oo ay leedahay dawladda Ingiriisku. ninkani ayaa ku dhiiriyay golahoodu inuu u arko shacabka reer Somaliland ee tiradooda uu ku sheegay 5.7 milyan kuwa aad muhiim ugu ah isla markaana gobolka iyo guud ahaan wadanka Ingiriiska xulafo muhiim u noqon kara. ma aha markii ugu horeysay ee qadiyadda Somaliland lagaga doodo baarlamaanka wadanka Ingiriiska taasoo loo arko inay tahay guul muhiim u ah marka ay noqoto siyaasadda amuraha dabadda isla markaana ay dabada ka riixayaan mudanayaal ka tirsan aqalkaasi oo jagooyin muhiim ah ka soo qabtay dawladda Ingiriiska sida Sir Gavin Williamson oo xilal wasiirnimo hore uga soo qabtay dawladda Ingiriiska xilalkaasi oo uu ka mid yahay wasiirka difaacu waxaana noqday ninkii ugu horeeyay ama wasiirkii ugu horeeyay dawladda Ingiriiska ka tirsan ee duulimaad toos ah ku yimaada magaalada Hargeysa markaasi oo ahaa wasiirka gaashaandhigga ee UK.